Tomorrow, 4 of those defendants are expected to plead guilty in federal court. It's that investigators have people who are willing to cooperate and who could be key to proving their case. Minneapolis council member Jamal Osman, which reported feeding 2,500 children per day. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad adduunka ka joogtaan. Halka aad naga daawanaysaan waa baraha Facebook iyo YouTube-ka aan ku leenahay ee Burhan Channel. daawadayaal ugu horeyntii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waxaan ka codsanayaa marka hore in aad muuqaalka like noo saarto. like-tu lacag ma aha, waa hal mar oo aad kaliya click siiso. sida aad la wada socoteenba ama barnaamijyadeennii hore aad ku daawanayseen, hadda xaaladdu faraha ayay ka sii baxday oo sheekadu hadda waxa ay maraysaa meel aad iyo aad u xasaasi ah. 4 qof oo ka tirsanaa dadkii lacagihii quudinta carruurta cunay ayaa waxaa la filayaa saakay in ay ku marqaati furaan dadkii kale FBI-da. sida aan horey idinkugu soo sheegay oo kiiskan gacanta ku haysa ayaa waxa ay heshiis hoose la galeen dadkii shaqaalaha ahaa ama kuwii lacagaha yar cunay. Now I solemnly swear that you will support the Constitution of the United States of America, the Constitution and laws of the state of Jamal Osman oo xaafad ka tirsan Minnesota gudoomiye ka ah ayaa waxaa la soo sheegayaa in uu ku jiro dadka lacagaha aad iyo aad u fara badan cunay. isaga iyo xaaskiisa ayaa ka mid ah dadka lacagaha aadka u fara badan dhunsaday, waana sida ay dawladdu ama wararka ka soo baxa dalka Mareykanka gaar ahaan Minnesota ay daabaceen. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa inta uu socdo barnaamijkeennii wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Mareykanka gaar ahaan Minnesota. maalinimada Khamiista ah ee dhowr saacadood ay uga harsan tahay dadka ku nool dalka Mareykanka ayaa waxaa la filayaa in maxkamadda Federal Court Minnesota la soo taago 4 qof oo ka mid ah kuwii lacagaha loogu talagalay in lagu quudiyo carruurta cunay. 4 qof ayaa maxkamaddu waxa ay ka gaari doontaa saacadaha nagu soo aadan go'aan aan inaba caadi ahayn. 4 shakhsi oo ah Soomaali waxaa la filayaa in ay saakay ka hor cadeeyaan maxkamadda in kiiskani ay FBI-du ku soo oogtay dad Soomaaliyeed iyo waliba kuwa kale ajnabi ah in ay sax tahay oo lacago ay dhunsadeen. 4 qof dawladda gaar ahaan FBI-da ayaa heshiis hoose la gashay, waana sidii aan barnaamijyadeennii horeba idinkugu soo sheegayay. dalka Mareykanka dadka ku nool gaar ahaan Minnesota khaasatan kuwii barnaamijyadan ka shaqeynayay ayaa saaka waxa ay ku hayaan wadnaha farta. ogow haddii 4 qof ay maxkamadda ka hor cadeeyaan in lacaga la dhunsaday, waxaa dhici karta in gibi ahaanba la soo xirxiro 49 qof oo maxkamaddu ay ku soo oogtay in ay dhaceen lacago. 250 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa waxaa lagu cunay hal sano gudaheed. lacagtaas dawladdu waxa ay ugu tala gashay in dadka masaakiinta ah iyo waliba carruurta lagu quudiyo. barnaamijkii ka horeeyay waxaan idin soo sheegay in hay'ado badan oo kaliya aan ahayn Feed Our Future ay jireen, kuwaasi oo si toos ah dawladda lacago uga qaadanayay. intiina badanba waad la wada socotaan inaan horey idinkugu soo sheegay dabinkan inuu yahay mid lagu talagalay dadka Soomaaliyeed in sumcadda lagu dilo. badanaa dadka boggeenan YouTube ku xiran iyo Facebook ayaa waxaan arkayay iyaga oo kommentiyada qaar ku soo qoraya qorshahan waa qorshe sax ah, laakiin aniga horey ayaan idinkugu sheegay. Jamal Osman iyo xaaskiisa ayaa waxaa loo haystaa in ay dhaceen lacag aad iyo aad u fara badan oo gaaraysa ilaa 12 milyan oo dollarka Mareykanka. arrintaas haddii ay sax tahay oo Jamal iyo xaaskiisa cadeen lagu keeno, waxa ay fadeexad iyo bahdilaad u noqon doontaa community-ga Soomaaliyeed ee degan dalka Mareykanka. ogow haddii Jamal lagu helo isaga iyo xaaskiisa in ay dhunsadeen lacagahaas, Ilhaan Cumar xitaa laftirkeeda kiiska waa ay soo galaysaa. Jamal waxa uu ku jiraa dadka sida dhow ay isku yaqaaneen ama xiriirka uu kala dhaxeeyay Ilhaan Cumar oo ka mid ah aqalka Congress-ka dalka Mareykanka. aniga horey waxaan idinkugu soo sheegay in Ilhaan Cumar wax laga qaadi waayay, laakiin tan ay tahay midii sumcadda looga dili lahaa. warar hordhaca oo ka soo baxaya dalka Mareykankana waxay sheegayaan in Ilhaan Cumar ay barnaamijkan iyadu ay dadka Soomaaliyeed markii hore u soo xirtay.
laakiin dawladdu ama FBI-da waxa ay ku andacoonayaan Ilhaan Cumar lacagtii ay campaign-ka ku gashay in ay ahayd lacagaha dadka masaakiinta ah loogu talagalay. Telefishinada ama joornaalada qaar ayaa qoraya in Ilhaan laftirkeedu ay ka mid tahay dadka lacagaha dhunsaday, laakiin aniga fikir ahaan taas hadda ma qabo. maxaa yeelay Ilhaan horay ayaan idinkugu soo sheegay waa qof cadaawad aad u fara badan beertay. markii loo fiiriyo dhinaca islaamnimada iyo Soomaalinimada, Ilhaan qof walba oo gaal ah cadow ayuu ku yahay. sidoo kale Ilhaan waa astaan ka mid ah astaamaha Soomaaliya. Soomaalidana waxa ay ugu jirtaa Ilhaan baal dahab ah, maxaa yeelay iyada oo xijaaban oo muslin ah sidoo kalena qaxooti ku soo gashay dalka ayaa waxa ay gaartay heer Donald Trump madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka in ay baraha bulshada iskaga jawaabaan dabino badan oo Ilhaan loo dhigay iyo waliba dacaayado fara badan oo ay ka mid ahayd ururada ama dadka jinsiyadooda bedela ee isku taga in ay u doodeysay. sidoo kale horay ayaan idinkugu soo sheegay Ilhaan in ay kala tageen wiil lagu magacaabo Axmed Xirsi, kaasi oo hadda dawladda Soomaaliya ay xil culus u magacawday. haddii wax yar aan gadaal u laabano, Trump oo ahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ayaa Ilhaan Cumar waxa uu ku raadiyay wax walba uu sharafta ama uu ku bahdili karo, laakiin Ilhaan Cumar daacadnimadeeda iyo waliba iyadoo ah qof islaam ah ayaa wax walba oo dhankaas kaga imaanayay Ilaahay ka xijaabay. Ilhaan si kale hadda laguma soo gali karo oo kiiskan ama barnaamijkan ay Soomaalidu lacagaha ku dhunsadeen xoogaa wax qiila ama dambiyo waa loogu sameyn karaa, laakiin aniga ilama ahan in Ilhaan midaasi ay wax ka qaadayso. Soomaalida horay ayaan idinkugu soo sheegay iyaga oo dhan barnaamijkan kuma wada jiraan, laakiin waxa ceebta iyo fadeexada keenaysa in Soomaalidii indhaha u ahayd barnaamijkan lacag lagu haysto. waxaa ka mid ah culimadii masaajidyada haystay, sidoo kale dadkii degmooyinka ama dawladda xilka sare ka hayay in ay barnaamijkani ku jiraan ama lugaha uu la soo gali rabo. haddii taasi ay dhacdo, maxaa diidaya in sharafta dadka Soomaaliyeed lagu kufsado dalka Mareykanka lagana soo qaado sida wadamada kale ee Afrikaanta ah? haddii aan hal idinkaga tilmaamana sida Nigerianka oo kale, haddii meel uu istaago qofku la fahmo in dhiig Nigeria uu ku jiro lama aamino oo waa la iska ilaaliyaa. dawladda Mareykanka xilal sare kama hayaan, sidoo kale xitaa xaafadaha ay degan yihiin sida Jamaal Cusmaan oo kale ma soo tartami karaan. haddii ay soo tartamaan ma jirto cid dooranaysa, maxaa yeelay waxa lagu shabadeeyay in ay yihiin dad tuuga ah, daroogadana iyo isdabamariskana aad iyo aad uga daba wareega. maxaa malayn kartaa Ilhaan, Jamaal, culimadii masaajidyada, dadkii fanaaniinta ahaa iyo waliba dadkii kale ee ganacsatada ahaa, barnaamijkan haddii uu lugaha la galo ama lagu soo oogo dacwad in sharaftii Soomaaliya ay dhulka ku dhacday ama la kufsado. laakiin saacadaha haddeertaan nagu soo beegan ee wax yar ka harsan, dadkii Soomaaliyeed ee barnaamijkan ku lug lahaa iyo waliba kuwii ay waalidiintooda ku jireen waxa ay gacanta ku hayaan wadnaha, iyaga oo haddana sii akhrisanaya quraamo iyo in Ilaahay uu ka badbaadiyo ceebtan weyn ee soo socota. 49 qof oo ay Soomaalidu u badan tahay waxa ku jira dad hal qoys ka soo wada jeeda. haddaba ku soo dhawaada magacyada maqaayadihii iyo goobihii lagu bixinayay iyo waliba meel kasta shaqaalaha ka shaqeynayay ee barnaamijkan loo haysto. maqaaxida Safari waxa barnaamijkan ka shaqeyn jirtay 14 qof. 2 Cabdikariin Cabdullaahi. 3 Salim Axmed. 4 Cabduqaadir Nuur. 5 Axmed Shariif. 6 Cabdinuur Saalax. 7 Cabdixakiin Cali. 8 أحمد محمد. 9 عبدالقادر. 10 عبد الناصر محمد. 11 أسد محمد. 12 حمدي حسين. 13 أحمد عبد الله. 14 عبد الرحمن محمود أحمد. و14 قف أو كمد كو برنامج كان لو هايستو وانا تيمكا مقاحيدا لغو مقعابا السفاري. حدبا مقاحيدا اللباد وحا لغو مقعابا حاجي كيجن. 1 حاجي عثمان صلاة. 2 فهد نور. 3 عنب عرتن. 4 شرماكي. 5 فرحية محمود كلية. 5 قف وحا اي جوغين اما كشاقينايين حاجي جيكين برافا وقوب كالي اما مقاحي كالي او ايضنا
ka mid ahayd kuwa cuntooyinka lagu qaybinayay, laakiin halkan waxaa ka dhacay halaag aad iyo aad u weyn. waa hal qoys oo ka kooban 6 qafood, 6doodana waa dad walaalo ah, waana barnaamijka loo haystaa. waxa aynu ku jiraan dadka barnaamijka loo haysto: 1 Sharmaake Jaamac, 2 Ayaan Jaamac, 3 Caashe Jaamac, 4 Fartuun Jaamac, 5 Mustaf Jaamac, 6 Zamzam Jaamac. laa xawla walaa quwwata illaa billaahi alcadiim. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. wallahi qoyskan waxaa ku dhacday musiibo, laakiin waxaan leeyahay ilaahay ha u fududeeyo. halkaana waxaa jira qolo kale oo lagu magacaabo Empire. 1 Cabdicasiis Shaafi, 2 Maxamed Jaamac, 3 Mahad Ibraahim, 4 Cabdimajiid Maxamed, 5 Saciid Shaafici Faarax, 6 Cabdiwahaab Macalin, 7 Mukhtaar Maxamed Shariif, 8 Xayaad Maxamed. Empire ayaa lagu magacaabaa, waana magacyadooda kuwa hadda aan idiin soo sheegay. tiimkanna waxaa loo haystaa in ay yihiin kuwa qayb ka mid ah kuwii lacagaha dhunsaday. hadda waxaan u gudbaynaa isla meel kale ama goob kale oo ka mid ahayd kuwa barnaamijkan cuntooyinkiisa lagu qaybinayay. waxaa lagu magacaabaa Jigjiga. lambar 1 waxaa ka mid ah dadka ka howlgalayay Liibaan Yaasiin, 2 Axmed Yaasiin Cali, 3 Qadar. ayagu waa 3 kaliya tiimka maqaaxidan ama goobtan ka shaqeynayay ee kiiskan loo haysto. haddana waxaan soo gaarnay qaybta ugu dambaysa. waxaa lagu magacaabaa S&S Catherine. lambar 1 Qamar Axmed, 2 Sahre Maxamed, 3 Cabdiwahaab Axmed, 4 Filsan Muumin, 5 Guhaad Xaashi, 6 Cabdullaahi Nuur, 7 Cabdul Abuukar, 8 Yuusuf Bashiir. waxa ay ka mid ahaayeen goob kale ama maqaaxi kale oo iyadana loo haysto dadka lacagihii cunay in ay yihiin. magaceedana hore ayaan idinkugu soo sheegay. haddii aan idinkugu celiyo, waxaa lagu magacaabaa S&S Catherine. daawadayaal, intaasi aad soo maqasheen waa 49 qof ee barnaamijkan loo haysto qayb ka mid ah. maqaaxiyada iyo weliba magacyadooda saddexaan waxa ay ku daabacan yihiin dhammaan warbaahinada ka soo baxa dalka Mareykanka, haddii ay noqon lahayd website, telefishin, idaacad iyo wixii la halmaala. magacyadooda iyo sawiradooda waxa ay ku jiraan internetka oo FBI-da ayaa la wadaagtay xogtan iyo magacyadan saxaafadda ka howlgasha dalka Mareykanka. haddaba daawada, adigu maxaad isleedahay? ishana ku hay barteenan YouTube ee Burhaan Janaal. daawada, haddii intaan aad soo gaartay, waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa adiga oo mahadsan in aad muuqaalka like iska saarto. meeshan waxaad kala socon kartaan warar xaqiiqo ah iyo weliba xogtii ugu dambeysay 24 saac ee la soo dhaafay ka dhaca caalamka oo idil. anigu waa Burhaan Cali, halkan waa Burhaan Janaal. waxaana idinkaga tagayaa sama iyo salaama. ilaahay intii muslim ah ee dhibaataysan dhibka ka bixiyo. sidoo kale ilaahay dalkeena ha noo hagaajiyo, oo haddii maanta aan dalkeena joogi lahayn waxaan iyo isburbursigan maana shaqo ku lahaan lahayn. waxaan idinkaga tagayaa mar kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.